In badan waad ku maqashay filimada Hindiga magaalada Mumbai. Magacii hore la oran jiray ayaa ahaa Mumbai, balse hadda waxaa loo bedelay Mumbai. Magaaladan waa magaalada ugu ganacsiga badan. Sanadkii waxay soo saartaa lacag dhan 1 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. Meeshaan hadda ka suganahay Mumbai waa Dharafi, oo ay degan yihiin dad iyagoo ugu saboolsan marka loo eego Asia oo dhan, balse waa dad cajiiba, iyagoo oo noloshooda aad u hooseysa haddana ma aha dad fadhiya. Halkani waxay ku sameeyaan bacaha dharka lagu rido, iyagoo ka sameynaya quraaradaha ama dhalooyinka, caagadaha biyaha iyo wixii la mid ah. Indiyaanka sidooda ogtihiinba waa dad u shaqeeya sida mishiinka oo kale. Waa dad aad ugu fiican qabashada shaqada. Waxaa laga yaabaa inaad wadanka ku aragteenba sida ay u shaqeystaan. Ragga halkan ka shaqeynaya waxay u badan yihiin da'dooda 20 ilaa 25 jir. Halkan iyo meelo kale waxaad ku arkaysaa xashiishyo aad u badan, waxaad moodaa meeshii xashiishka lagu gubay. Waxaana ku soo rogo warshada. Waxaa sidoo kale mara 2 dhuumood oo waaweyn oo marinka saliida ah. Mumbai waxaa ku nool 22 milyan. Boqolkiiba 50 waxay ku nool yihiin noloshan aad ka hooseysa. Sababaha halkan dadka dejiya ayaa waxay tahay kirada oo qaali aad ugu ah marka la joogo Mumbai dhexdeeda. Halkani waa warshad kale, waxay dib ugu warshadeeyaan warqadaha kuwaas oo ka soo saaraan karaatonta lagu rito alaabta. Waxaad ka yaabisaa meel walba waxa ku yaala shirkad soo saaraysa alaab gooni ah. Sidaad arkaysaanba guryahan waa kuwo aad isugu dhadhow, dariiqeedu aad u dhuuban yahay, 2 qof iskuma dhaafi karaan. Waxaan eegaynaa mid ka mid ah guryahani. Qolkan yari waxa uu guri u yahay 3 qof. Halkaas waa musqushi, halkaana waa kitchenkii cuntada lagu karsanay, inta kalena waa ay seexdaan. Waliba haddii aad oran lahayd iibso qiimihiisu wuxuu noqonayaa 15 ilaa 20 lakh oo lacagta Indiyaanka oo u dhiganta 18,000 oo doolar ilaa 23,000 oo doolar. Haddii aad kiraysanayso bishii waxa uu noqonayaa 10,000 ilaa 15,000 oo rupees oo u dhiganta 110 doolar ilaa 180 doolar. Dabcan waad aragtaa sida ay noloshooda aadka ugu adag tahay, haddana ma hadda isdhiibaya. Ganacsatada waaweyn ee Mumbai ayaa waxay rabaan inay qaataan dhulkan ay degan yihiin dadkani noloshooda aadka u liidato, balse marka hore waa inay ka raraan dadkan meesha degan. Dadkan xoog kagama qaadayaan, laakiin waxay dhiseen dhismayaal waaweyn kuwaas oo ay dejin doonaan dadka.